waxaan jecel lahay inaan u sheegno waalidiinta carruurtaas anoo ka xalka inaan ka sheego boqolaal baanu qabanay dhalinyaradaas waxaan aad uga xumahay inaan halkan ka sheego in dhalinyarada ay la shaqeynayaan maxkamadaheena qaarkood oo dhalinyarada marka lagu soo xidho waxyaabaha caynkaas ama kufsi ahaato ama ammaan darro ay sameeyaan ha ahaato ama dad ay dhibeen ha ahaatee inaanay habeen u hoyn jeelka ee waxoogaa yaroo gacan marisa laga qaado dabadna dib loogu soo celiyo xaafadihii iyo dadka ay dhibayeen taa runtii aad baan uga xumahay wax sii socon karayana maaha waxaan si halkan aad ugu adkeynayaa maxaa waalidiinta inanka ay maxkamaddu hayn kari weydo ama xaakimku uu la necbaysto inuu ku sii jiro xabsiga waxaanu ku bedeli doonaa aabihii ama waalidkii baanu ku bedeli doonaa haddii alla yidhaahdo weligiiba ha dhudhunto dambiiluhu iyo meel alle meeshuu jooga haddii alla yidhaahdo ciidamada booliiska iyo ciidamada amnigu waxay amar ku qabaan inay soo qabtaan mana jeclin ninkaa in la qariyo waayo ma doonayno inay waddankeena ka noqoto muxuu ahaayey sunne in dadku si sahlan ay muxuu ahaayey gacantooda u isticmaalaan waxaan ka maqlayay tviyada soomaaliya u dabaal degaysa in somaliland qaadatay baasaboorkii soomaaliya waxaan leeyahay been baa u dabaal degteen mana jiro laba dal baynu kala nahay baasaboor baan anagu leenahay imikana waxaanu wadnaa baasaboor e-passport layidhaahnu soo saaro 3 saacad sanadkan intaanu dhammaanin caalamkana kaasaanu u gudbin doonaa haddii la yidhaahdo kaasaananu jecelay inaanu caalamkula macaamilno waayo baasaboorkayga annagaa ka mas-uula dadka sitana annagaa ka mas-uula laakiin baasaboor lagu diro xawaaladaha iyo muxuu ahaayey dadka dariiqada isaga tallaabaya loo sii dhiibo oo aan dawlad lahayn runtii waxaan leeyahay baasaboorka soomaaliya maaha baasaboor dawlad leh waayo tuulooyinkaa loogu diraa dadka